بسم الله الحمد لله الثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله قدونك لبدا أقل جمهورية فدرالك الصوماليات xildhibaanada labada aqal labada guddi ee dastuurka iyo dhammaan marti sharafta ku soo qayb gashay kulankan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaan xildhibaano waxayna hor yaalo arrin masiiri ah oo taariikhi ah dhamaystirka iyo wax ka beddelka dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed oo aanu baryahan u madlanayn kuna guda jirno waa taariikhi haddii aanu ku guulaysano inaan ka dhigno mid ka turjuma baahida ummadda Soomaaliyeed mid marjac u noqdo sinaanta wadajirka iyo wada noolaanshaha shacabka Soomaaliyeed dhowro qarannimada iyo madaxbannaanida dalkeena iyo karaamada ummaddeena haddii aan ku guulaysano waa arrin taariikhi ah oo soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed baarlamaanka 11aadna waxa uu ku suntanaan doonaa baarlamaankii ku guuleystay dhamaystirka haykalka dawladnimo ee isdiidooyinka badan ee dhex jiifeen waa taariikhi haddii aan ku guulaysan weyno oo aanu ku guuldaraysanno inaanu ka dhigno asbaabihii aan hore u soo sheegay baarlamaankan wuxuu mugdi u horseedayaa shacabka Soomaaliyeed waxaan ku suntanaan doonaa kuwo taariikh madow ku leh ummadda Soomaaliyeed gudaheeda dabcan muraayada baarlamaanka waa guddoonka waxaanu ka rajaynaynaa inay noo dulqaataan mas'uuliyad dheeri ah iyo muujiyaan inoona ogolaadaan inaan si hufan u gudano waajibaadkeena waa maalintii afraad dood dheer baan soo galnay waan hadal badnay wixii kale aan ku darnaan aaminsanahay laakiin waxaan rabaa saddex qodob inaan taakiidiyo oo dul istaago saddexda qodob oo actually isku sidkan marka si loo eego waa jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed qodobka 7 saddex qodob oo iswato oo kala ah geyiga caalanka iyo astaanta iyo qodobka 8aad oo jinsiyadda Soomaaliyeed marka waxaan ku hormarayaa jinsiyadda waxaan jeclaan lahaa inaan dib ugu xiro saddexda qodob aan soo sheegay qodobka 8aad jinsiyadda faqradiisa labaad oo u qoran horta dib aan u laabto wax yar waxaanu meesha ku fadhinaa oo matalaynaa shacabka Soomaaliyeed oo deegaano badan nin walba ka soo jeedo aniga waxaan ka soo jeedaa constituency-ga magaalada la yiraahdo Buuhoodle oo qayb ka mid ah ay tahay dalka Itoobiya qaybta soo kana ay tahay Soomaaliya dadka constituency-ga ah oo aan ku matalo baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed qayb sanadkiiba waxay joogaan gudaha Soomaaliya sanadka qaybtiisna waxay ku jiraan gudaha Itoobiya jinsiyadani hortaalo hadda ma ku caddo qofka Soomaaliga ah ee asal ahaan ama isir ahaan Soomaali u ah waxaan jeclaan lahaa faqradda labaad inay u qormato jinsiyadda Soomaalinimo ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed marka waxay ogolaanaysaa qof kasta oo ku abtirsado ama isir ahaan ka soo jeedo ummadda Soomaaliyeed inuu iska dhex arki karo constitution-kan iyo jinsiyadiisa uu leeyahay marka aan ku darno erayga Soomaalinimo waxaan si jeclaan lahaa inaan dib ugu laabano law number 28 1962 article-kiisa Somali Citizenship Bill-kii ahaa faqradiisa saddexaad oo tilmaamaysay yaa Soomaali ah marka taa ku xirna waxaan aaminsanahay in dastuurka aan ka shaqeyno noqon doono dastuur matala ummadda Soomaaliyeed dhammaan ahaan haddii aan yara balbalaariyo oo eray maalin hore ka dhawaajiyay walaalkay Amiin Jeeso aan taabto Soomaali baan nahay oo labadii Soomaali aan meeshan ku matalnaa laakiin saddexdii inaga maqnaayay NFD iyo Kilalka iyo Djibouti waxaanu ogsoonahay inaan kulligeen qayb ka nahay citizenship-kooda qayb aan haysano waxa inoo ogolaanay inaan qaadanana ay tahay Soomaalinimada isirka ku abtirsanayno haddii marba ay saa tahay wax diidi kara ma laha wiilka ku dhashay Gaarisa ama wiilka ku dhashay Kilalka shanaad inuu citizenship Soomaaliga uu qaato wax ka hor istaagi kara malaha marka taas aan saa ku dhameeyno waxaan jeclaan lahaa guddiga in arrinkaas xilwaano badan muujiyaan sida la mid ah waxaan rabaa qodobkii 7aad faqradiisa 1aad oo u qorneed jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed ama Soomaaliya xilwaano badan baa su'aal geliyay haddaanu niraahdo jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ama Soomaaliyeed
ilaa intee in la eg bay ka fargaraynaysaa dhul ahaan maamulka Somaliland qayb ma ka yahay mise qayb kama aha guddiga way dadaalayna waxay bixiyeen xuduudaha jamhuuriyadda federaalka ay qeexeen oo ilaa iyo gacanka cadmeeda kor ay gaarsiiyeen waxaa ila quman marka dib u eegay dastuuro badan oo wadamada dariskeena ah inaan soo koobno oo sida sharciga 1962 ah ku keebno oo act of parliament aan wixii amendment ama balbalaarin ku sameeyno taas inta ku ekeeno waxaan kaloo rabaa si la mid ahaa sharxi hore ee jinsiyadda qofka Soomaaliga meel kasta uu joogo wuxuu nala wadaagaa calanka wuxuu nala wadaagaa dhulka Soomaaliyeed wuxuu nala wadaagaa astaanta qaranka Soomaaliyeed marka dastuurka qaybahaas oo kala ah qodobka koowaad faqradiisa saddexaad iyo qodobka lixaad faqradiisa koowaad iyo dhulka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya bixintaas waxaan jeclaan lahaa in guddiga dib ugu laabtaan oo ku qoraan guddiga jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed erayga dawladda wada lahaansha waa maasantiin waxaan si gooni rabaa inaan u bahad celiyo bahda saxaafadda oo dhab ahaantii waddanka gudihiisa uga shaqeeyo dib badan shaqadooda ka mato waxaan jeclaan lahaa inay arrinkan masiiriga aanu haysano accountability-ga dheeri ah noo muujiyaan oo guddoomiyaha iyo guddiyadu soo jeedinta aan soo jeedinayno way qoranayaan laakiin saxaafadda ay ilaaliso xildhibaan kastoo hadlo qodobka uu taabtay inta jeer uu taabanayo soo qodobka jinsiyadda waxaa laga yaabaa 40 xildhibaan inay ka hadashay 40 xildhibaan soo jeedintooda inay hiidiyaha ay noo control inoo hayaan si ay korjoogto inooga ahdaan waan mahadsantihiin dhammaan assalaamu calaykum